mudanayaal iyo murwooyin soo dhowaada dhammaantiin meel walba oo aad daafaha dunida ka joogtaan oo ku soo dhowaada macadka Darwiish Academy. qaybtan waa qayb muhiim ah, waa qaybtii sare casharadii taxanaha ahaa cashar ka mid ah. waxaan ka hadlaynaa qayb muhiim ah oo qofku marka uu suuqan ku jiro ay muhiim tahay inuu labadan wax kala ogaado, kee awood leh iyo falsafada Darwiish Academy aad ku arki doontaan. waxaan ka hadlaynaa dadka suuqan ka ganacsada qaab badan bay uga ganacsadaan. intiina hore ugu jirtay intiina cusubba inaa ogaataanna waa muhiim. waxaa jira wax la dhaho news traders, dad newska keliya ka ganacsada, iyo wax la dhaho technical traders, iyo dad xirfadooda iyo aqoontooda suuqan kaga ganacsada. news tradersku waa maxay marka? haddaan qeexno, waa dad wararka ku ganacsada. wararku waa maxay marka? newsku waxa weeye news traderskaasi dadkaasi waxay sugayaan waddankaas warka ka soo baxaya. haddii yacni madaxweynaha waddanka hadlaya, arrimo qalalaasa siyaasadeed ka jiro, haddii yacni waxyaabo adigu ku taxalluqo wararka ka soo baxaya lacagaha waddamadaas laga leeyahay bay maanta dhan analyse garaynayaan oo taxliilinayaan. maxay dhihi doonaa, maxay noqon doonaa hadduu saa dhaho saasay noqonaysaa, madaxweynuhu hadduu saa dhaho haddii sidaa baarlamaanku iyo sidaa isku kale, yacni waa taxliilin sidaas ay doontaa iyo qaab ay u taxliilinayaan. balse dhanka kale waxaa jira wax la dhaho technical trader oo ah iyagu inay taxliiliyaan suuqii oo aysan news iyo waxba aysanba xoogga saareen, xoogga dhan iyo aqoontooda iyagoo kaashanaya ay suuqan falanqaystaan iyagoo adeegsanaya farsamadooda gacanta. balse halka news tradersku keliya ay samaynayaan wax la dhaho taxliilintaas oo aysan hubin meesha oo aasa. balse qofka technical traderska aqoontiisa iyo xirfadiisa isagoo ku salaynaya wuxuu hubaa tradekan u gelaya, sababta u gelaya, meeshuu ka gelaya. balse qofka news traderska wuxuu dhiganaya wax la dhaho sell stop iyo buy stop, oo micnaheedu tahay hadduu suuqani sell soo aado halka iga sii raac, hadduu buy sii aadan halka ay sii raaci, oo 10 bib buu kor uga baxaya, 10 bibna hoos buu uga baxaya. taa waxay ku cadaynaysaa inay tahay waxa weeye risky, inay tahay waxa weeye waxyaabo badan. marka waxaan idinkula talinayaa news trader inayna noqon dad ka ganacsada wararka, ee noqotaan dad technical trader ah, khibradatan technical trader. waxaa asaasiyaadkii qaybtii dhexe iyo qaybtan sareba kusoo barateen kuna baranaysaan inay tahay wax muhiim ah oo ku saabsan technical trader. mar walba oo wax falanqeynayna arki maysid anoo forex factory iyo investing.com iyo meelaha wararka lagala socdo warka yacni waxa weeye maanta dhan falanqeynaya. waxaa arkaysaa anoo chartska la sheekaysanaya, aniga oo falanqeynaya suuqii iyo calaamaduhu sameeya, market structure iyo market waxa weeye natureka dabiiciga uu sameeyo, iyo patterniska iyo candleska oo adeegsatid, iyo trend line iyo Darwiish strategy oo intaas oo dhan aad ka dhexelaysid baan kugula talinayaa. okay, aan qeexna marka waa maxay news traders. dadka news traderska waa maxay? dadka ka ganacsada wararka waxa ay mar walba ku tiirsan yihiin ama sugaan madaxweynaha hadlaya ama baarlamaan baa shiraya, oo waxa weeye waxay keenaan baa arkaynaa wixii halkaa ka soo baxa maanta dhan bay sugayaan. intaa sugayo ama intaa ka baqayo baqdinta waxa laga yaabaa intaas oo trade inay dhaafaan qofka kan, intaas oo fursadood inay dhaafaan. taasna waa sababta dad badan suuqa kan faa'iido uga sameyn waayeen uguna khasaaraan. qaybta xigta marka technical tradersku waa maxay? technical tradersku waa ama dadka technical traderka ah waa qofka technical traderka ah kama walwalo war soo baxaya, ee waxa uu ku kalsoon yahay, aqoon buuxdana u leeyahay qaab dhismeedka suuqa iyo calaamadaha dabiiciga ee suuqu sameeyo, waa patterniska iyo candleska iyo kuwa reversalka sameeya. waxaasoo dhan markuu qofku fahmo wuxuu noqonayaa qof iskiis suuqan uga shaqaysta oona waxba ka walwalin. qaybtan kale marka dadka technical traderska ah kama cararaan correction suuq ku jira ama jahwareerka, yacni sida u taqaanaan,
way sugaan inta suuqu dhammaysanayo jahwareerka waxa ayna u arkaan fursad dahabiya halka dadka news traderska ay ka baqaan bayse waxaasoo dhan ba aysan sugin news keliya ay sugayaan ay maanta dhan waxa kasoo baxay kadibna laga yaabo inuu ka dhicisoobo dhaha newska waa dhicisoobay qama shaqaynayo haddii kale dujahada kale ka aadana yacni waa qaab riskiya marka mar walba waxa muhiim ah technical trader wuxuu ku fiican yahay ama qofka technical trader markuu yahay trade-ka sababtuu gelayo inta uu rabo inuu khasaaro intuu rabo inuu faa'iido meeshuu ka gelayo haddii uu faa'iido sababtuu ku faa'iiday haddii uu khasaaro sababtuu ku khasaaro intaasoo dhan wuu garanayaa qofka kale sababta wuxuu soo taxliiliyey balse qofka news traderka ah intaasoo dhan waxa ka saaran caad ama dahba ka saaran sababtoo ah maba garanayaba hadduu faa'iidana sababtuu u faa'iiday waa riski cad marka waxa muhiim ah in aad mar walba technical trader noqotid markaad technical trader noqotid newsku wax uu kaa qaaday ma jirto newsku meeshii aad rabtay u falanqaysatay market structure-ga si sax marka u baratid meesha u falanqaysatay baad buu suuqu aadaya newskuna jihadaadii buu kugu sii kaxaynaya balse newsku wax saameyna uu kugu yeelanayo oo taban ma jirto mid togan buu kugu yeelanaya jihada rabtina uu kugu sii kaxaynaya ma hadduu analyse-kaagu saxan yahay oo tahay qof khabiira analyse-kii sida loo saxday sida loo waxa weeye loo falanqeeyo suuqana waxa ku baranaysaa Darwish Academy okay marka waxaan guda gelaynaa qaybta tan ee technical traderka qofku marka uu yahay technical trader see wax u falanqeeyaa si ay kalsooni waxa aan kuu sheegay oo dhan aad u aragtid waxaan gelaynaa oo falanqeynaynaa lacagta tan mudane iyo murwo ila soco markaad fiirisid lacagta tan intaas oo wado one day baan joognaa waxaan u falanqeynaya ila socda iyo qaabkaan u falanqeynaya ee hufan markaad fiirisid waxaad halkan arkaysaa lacagtan waxa ay samaysay mudane iyo murwo trend line-kaygi baan sawirtay markaad trend line-kayga sawirtay lacagta tan inta meelood ee halkaa lagu soo celceliyaa ujeeda okay waa maxay markaan leeyahay market structure-ka qofku marka uu barto lacagta tan aan dhahno intanoo dhanba aan iska dayno okay halkan waxaad aragtaan suuq wax cajiib inuu ka sameeyo calaamadaha uu suuqu sameeyaa halka ilaa intaas iga jar okay ilaa intaa marka aan jaro waxaa arkaysaan marka halkan aan nimaano qaab dhismeedkii suuqa wali ku jirna ee market structure-kii okay trend line-kaaga mar walba waxa saaraysaa cirifka candle-ka marka trend line-ka saa u sawiratay halka soo qaado kadibna waxa sawirtaa qaabkaagii suuqa ee ahaa qaab dabiicigii trend line-kaagii si qurux badan buu halkaas kugu soo waafaqay kana si kale oo qurux badan buu halkaa kugu waafaqay sababta aadan kan u saarayn waa maxay sababtaada u saarayn haddaa saa tiraahdid waxa weeye waxaad waayaysaa intaasoo signal oo dhan marka waxa qurux badan inaad sidaada hore u daysatay oo sida tan ay kugu qabatimaan haddaan fiirino marka falanqaynta tan halka suuq uu soo taabtay signal baa ka baxay halka kale uu soo taabtay signal baa ka baxay suuqa halkan kale uu soo taabtay suuqu oo signal baa ka baxay halkan kalena uu soo taabtay suuqu oo signal baa ka baxay wuxuu suuqu halka ka sameeyay bartan wuxuu ka sameeyay mar kalena halka sameeyay halkan uu soo dhaadhacay ilaa halkan uu misna soo dhaadhacay waa the same waa market structure-ka waxa jira saa halka uga jeedid waxa arkaysaa suuqu halka wuxuu ka sameeyay kor buu u socday uptrend buu ahaa ujeedaa okay haddii aan idiin weynaysiiyo si faseexa baa u arkaysaa cabirka kan wuxuu la eg yahay haddaa cabirtid kanuu la eg yahay dhaqaaqanu suuqu sameeya waa market structure-ka iyo qaab dabiiciga suuqu waana lagama maarmaan intana uu halka ka sameeyay suuqu cabirka kan markaad cabirtid uu halka ka sameeyay uu ka dhaqaaqay oo kale buu halkana ka dhaqaaqay saaxiibayaal markaad fiirisid misna cabirka kan kale halka correction-ka markuu dhamaystay intan uu dhaqaaqay oo kale buu kana dhaqaaqay waa market structure-ka hortu correction-kan ka baxay kana uu correction-ka ka baxay waa sababta marka uu halkan iskaga yihiin iskaga soo shabahan suuq wuxuu sameynayaa mar walba wuxuu hore u sameeyay waana muhiim waana lagama maarmaan in aad baratid mar walba
هذا مركا لعقتني سان سميسي وح عجيبة سميسي لعقتني وح سميسي كربكي وح سميسي بيدح بي سميسي كدب وي لابطي way soo dhacday madaxii baa samaysmay kadib way laabatay halkan ay tagtay lacagtani way soo laabatay karabkii midig baa samaysmay halkaasay maraysaa ushaada soo qaadanaysaa nag leenkaaga saaraysaa waxa arkaysaa halka inay ka samaysmatay waxa la dhaho laba garab iyo madax isaguna waa maxay waa reversal pattern way waxa ku soo barateen qaybta dhexe halka markaad aragtay labadan garab iyo madaxa kan inuu samaysmay maxaa ogtahay marka confirmation gaad helisid bal fiiri yaani news baa soo baxay waxaad dhuma fiirinaysid ba kaliya waxaad sameynaysaa qaab dhismeedka suuqa halka maxaad aragtaa dhex bartamaha saa uga cabiro halka dhex bartamaha saa uga cabiro waa cabiratay ilaa ay meeshu gaaray ku soo baxaya ilaa halka inuu gaaray lacag si kale hadaan kugu dhigo confirmationka kale oo aad helaysid waa maxay lacagtan halka waxay ka samaysay jahawareer bay ka samaysay saaxiib yaalada u jeedaan correction bay gashay soo qaado cabirkaagi ilaa halka dhigo waxa u jeedaa flag inay samaysay kadib maxaa ogtahay flagga markuu suuqu jabiyo ilaa ay halka inuu gaarayo marka waa maxay waa market structure-kii iyo qaab dabiiciga suuqa soo cabiro si hufan u soo cabiro okay halka dhigo inuu barta ku gaarayo u jeedaa yaani waa market structure-kii ma gaaray meeshii mise ma gaarin waxaan idinku tusayaa fiiri bartii buu gaaray dad cabirkaaga soo qaadid oo halka ka soo bilowdid barta hada ka soo bilowdid oo halka saartid exactly barta oo cabirtiin inuu taga u jeedaa waa maxay waa market structure hadii kale oo madaxa dhexdiisa cabirtid sida labada garab ee madaxa ku soo barateen waxa arkaysaa tabtii inuu bartii tagay okay taas waa maxay marka waa qaab dabiiciga iyo qaab dhismeedka suuqa uu suuqu sameeyo mar walba marka waa inaad tahay wax la dhaho update suuqi halkan uu ahaa markii hore saamareysay balse maxaa dhacay korba u qaadaysaa ushaade halkaas aad dhigaysaa kan kalena hoosna u soo dejinaysaa halkaas aad qabad siinaysaa okay markaad fiirisid si qurux badan baa waxa kugu sawiran trail line-kaagi balse kuwii dhexe meeshay ka baxeen ujeedaa soo markaad fiirisid oo si fasaxa baa misna mar kale u sawirayna qaab dhismeedkii suuqa iyo trail lines-kii way la fahanteen tusaalihii hore okay jadaan kuwan meesha ka baxeen balse maxaa meesha ku yaala tii hoose halkan hoose mar walba waa inaad tahay update sababtoo wax walba dhici kara halka suuq maxaa moodaysaan waa meel hore uga soo laabtay qof professional kaliya dareemi kara waa double top buu ka sameeyay u jeedaan halkan 1 2 kadibna soo isagoo trail line-ka gaarin buu soo laabtay laakiin waxa fahmi kara qof khabiira haddii idinkuna aad barataan horumar baa ka gaaraysaan anaa taa idin ballan qaaday halkan uu soo taabtay suuqii halkan uu soo taabtay waxa u jeedaan trail line-kaagi si qurux badan inuu halkaas saddex mar u soo taabtay kadib maxaa dhacday waxa dhacay halkan inuu misna soo taabtay oo uu suuqi signalo buy uu ka bixiyay inta markuu sameeyay suuqi maxaa dhacay oo ku xigay halkan inuu ka sameeyay calaamad kale soo taabtay saaxiibayaal waxa laga maarmaan marka mar walba inaad tahay qof update suuqu halka muxuu ka sameeyay wax cajiib ah buu ka sameeyay markaad fiirisid oo waa maxay wuxuu ka sameeyay wax la dhaho double bottom buu ka sameeyay oo hoose inuu laba mar soo taabtay halka 1 iyo 2 inuu soo taabtay kadib maxaa ka sugaysaa in intaasoo buy buu aaday oo dhaqaaqay hadaad fiirisid ilaa iyo 100 iyo dhowr bii buu dhaqaaqay balse hadda waa maxay waxaan ka raadinaynaa lacagta tan waxaan tagaynaa wax la dhaho 4 saac baan tagaynaa 4 saac marka aad tagtid lacagta tan waxa ku arkaysaa wax cajiib ah inay sameysay oo waa maxay waxa cajiibka ay sameysay waxa cajiibka ay sameysay waa adiga oo mar walba fiirinaya fursadda taala suuqa kan waa maxay fursadda tani halka lacagtan waxay ka sameysay fiiri mudane iyo murwa halka waxay ka sameysay lacagtan wax cajiib ah waxa cajiibka ay ka sameysay waa kan
kadib maxaa dhacay waxa isla ekaaday dhaqaaqan uu suuqu sameeyey halka ka sameeyey haddaad fiirisid halka uu ka sameeyey iyo kan buu isla ekaadeen marka waa maxay waa market structure-ki wey kadib dabiicigii suuqa baa kor u qaadaysaa waxaa arkaysaa halkan inuu hore uga soo taabtay suuqu okay halka inuu kasoo taabtay waxaa kaloo arkaysaa inuu halkan isna soo taabtay markaad fiirisid trendline-ki uu dhacay halka ka tegey kadibna soo dhaqaaqo waxaan sugaynaa wax kale ma confirmation-keena 1 hour baa tegaynaa halka waxaa arkaysaa waxyaabo fara badan oo kaa daahanaa marka 4 hour tegtid si faseexa baa waxa u sawiran kartaa meesha tan uu suuqu waxa weeye ka bilaabay inuu soo jabsado halkan ujeedaan soo dhacay markaad fiirisid marka cabirkaaga soo qaado dhaqaaqani wuxuu la egyahay kanna wuxuu la egyahay kanna waxaa ka sugaynaa inuu halka intuu kasoo dhaadhaco bartan yimaado kadibna all the way up aysan ahayn uu soo jabsado oo hoos usoo dhaadhaco 1 hourna tabtii oo kale buu sameynaya oo waa maxay sababtu saa u sameynaya waxaa arkaysaa inuu halka ka sameeyey waxa la dhaho correction markuu suuqu halka correctionka ka sameeyey waxa ogtahay marka meeshu aadaya 15 minute baa tegaynaa kadibna waxa ujeedaa lacagtana halka correction kaga jirto waxa sugaynaa ilaa inta halka ka imaanayso mudanayaal iyo murwooyin qaybtan waa qayb muhiim ah intaasoo dhan aa ujeedidna wax niyuusa kama welwelisid waxa saa kuugu dhaqaajinaya suuqa waxa weeye waa cilmigaaga iyo market structure-ka aad baratid markaad fiirisid marka halkan one day waxaad arkaysaa markuu suuqu labadan garab iyo madaxa sameynayay cid yacni waxa weeye aan la tashanay ama team isku xiran iyo waxa weeye sida idinku waxa weeye fursadda tan aad isku u hesheen dad khibrad u leh oo aan khibradayda dhan inta idinkula wadaago dad badan baan nasiib u helin marka nasiib baad leedihiin inaad waxaan si fudud ku fahantaan adoo luuqadaadi lagugu sharaxayo ka faa'iideyso nasiibka kan iyo fursaddan aa heshay markaad fiirisid marka suuqan wax cajiiba market structure ku weeye oo qofku hadduu barto uu horumar la taaban kara ka gaaraya suuqa kan mudanayaal iyo murwooyin markaad fiirisid marka halkan wuxuu suuqu hadda ka sameynayo haddii aad soo jirtid wuxuu suuqu hore usoo sameeyey wax cajiiba baad arkaysaa haddii keliya aad halkaa kasoo jirtid wuxuu suuqu sameeyey intaa keliya haddaad soo jirtid waxaa arkaysaa meesha uu suuqu imaanayo oo ah inuu halka imaanayo waa laba maarmaan marka haddaad rabtid inaad fursaddan aad uga faa'iideysatid ku celceli waxaa arkaysaa adigoo guul la taaban kara ka gaaray waa mahadsantiin mudanayaal iyo murwooyin waxaynoo ballanaa guul iyo farxad